وكما عياريهنك أكرم عفيف أما حدقة وقتك المتلية حولك قرن كقدر أكرم حسن عفيف oo alla bilaad sanajir waxa uu kamid yahay ciyaartoyda xirfadda sare leh ee sida weyn loogu hayo indhaha waa ciyaaryahan qadari ah oo ka soo jeeda dalka Soomaaliya haatan waxa uu ciyaaraa kooxda Al Azad oo amaah uga soo qaadatay nadiga wadanka Isbaanishka ee Villarreal Soomaaligan qaatay dhalashada qadar ayaa xirfadle heer sare ah waxa uu taariikhda baal dahaba ka galay kulamo uu si weyn u matalay xulka qaranka qadar waxa uu lambarka 10aad uga ciyaaraa xulka qaranka qadar isaga oo kaalin mug leh ka qaatay guulihii qadar ay ka gaartay tartanka Asian Cup oo ay ugu dambeyn maalimadii Jumcaha ahayd ku guuleysatay waxa weerarka uga ciyaaraa kooxda kubadda cagta Al Azad waxa loo arkaa inuu yahay mid kamid ah ciyaartoyda ugu xirfadda wanaagsan kubadda cagta ee haysta dhalashada qadar aabaha dhalay Akram Afif waxa lagu magacaabaa Xasan Afif waxa uu kamid ahaa ciyaartoyda xulkii matalay gobolka Jubbada Hoose 1971 waxa uu sidoo kale Xasan Afif u soo ciyaaray naadiga Horseed oo xilliga ka dhisnayd magaalada Muqdisho ee dhulkeena hooyo sanadkii 1975 sidoo kale Xasan Afif ayaa kamid noqday ciyaartoydii xulka qaranka Soomaaliya u soo matashay intii u dhaxaysay 1972 ilaa 1980 inkastoo hadda aabaha dhalay Akram oo ah Xasan Afif oo isaga fadhiistay ciyaaridda kubadda cagta sanadihii 1994 haddana waa macallin leeliya naadiyo dhowr ah oo ka dhisan dalka qadar marka aan u soo laabano Akram Afif ciyaartii finaalka ahayd ee ka dhacday magaalada Abu Dhabi ee caasimadda Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu si weyn uga dhex muuqday Akram Afif oo laba kamid ah goolasha baasay kan saddexaadna dhaliyay isagu da'yarkan ayaa waqti ku soo qaatay wadanka Spain gaar ahaan kooxda kubadda cagta ee Villarreal ciyaaryahankan u dhashay wadanka Soomaaliya hay'ashee qaatay dhalashada qadar ayaa si weyn u soo jiitay indhaha caalamka kadib bandhig la yaab lahaa oo soo bandhigay labadii kulan ee ugu dambeysay ee Asian Cup xulka qadar ayaa la sugayaa in ay martigeliyaan koobka adduunka waxayna tani u fududeyn doontaa inuu qayb lixaad la ka qaato matalida xulkiisa qadar waxaan xasuusinaynaa daawadayaasha ku xiran Jubbaland TV gaar ahaan barnaamijka garoomada ciyaaraha ee Jubbaland TV in toddobaadka dambe aan soo qaadan doono mid kamid ah ciyaaryahanada soo matalay xulka gobolka Jubbada Hoose iyo waliba xulka Jubbaland oo labadaba aan daawadayaasha u soo bandhigi doono intaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta taariikhda ciyaaryahanada oo qayb ka noqon doonta barnaamijka garoomada ciyaaraha ee Jubbaland TV